kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka xiisada gobolka Gado oo dib u soo laba kaclaysay iyo Jubbaland oo si nabad ah kula wareegtay degmada Baardheere maamulkeeda sidoo kale waxaynu idin soo gudbin doonaa wararka sheegaya in dawladda federaalka Soomaaliya lagu cadaadinayo wada hadal ay la furtay Jubbaland iyo sababaha ka dambeeya ayaan idin soo gudbin doonaa balse intaanu guda galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horreysayna soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkana like aad saarto si dad badan uu gaaro. Jubbaland ayaa waxa ay dib ula wareegtay magaalada Baardheere oo horay maamulkeeda ay uga faramarojisay dawladda federaalka Soomaaliya. Haddaba xiisada gobolka Gado ayaa markaasi la rumaysan yahay in ay mar kale dib u soo laba kaclaysay kadib maalmo ay xaaladdu deganeyd. Jubbaland muddo kadib waxay dib ula wareegtay xarunta maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gado. xaruntaas ayaana la sheegay in muddooyinkii la soo dhaafay ay haysteen lana wareegeen ciidamo ka amar qaata dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ee wasiir Fartaag iyo sarkaal lagu magacaabo Ilka Dheere. gudoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gado ee Jubbaland ugu magacaaban Aadan Maxamed Axmed iyo xubnaha kale ee maamulkiisa ayaa dib ula wareegay xarunta degmada waxayna halkaasi ku sameeyeen kormeer indheena oo ay ku hubinayeen xaaladda xarunta iyo sida dadka loogu adeego. waxa uu sheegay gudoomiyaha oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta degmada isagoo ay hareer fadhiyaan qaar ka mid ah saraakiisha degmada iyo maamulka xubno ka mid ah maamulka degmada Baardheere ayaa waxa uu markaasi xusay in si buuxda ay gacantooda ugu jirto degmada Baardheere waxaanu tilmaamay in ay diyaar u yihiin ka maamul ahaan in ay ugu adeegaan bulshada ku dhaqan magaalada Baardheere si wanaagsan. xarunta maamulka degmada Baardheere ayaa gacanta Jubbaland ka maqnaa in muddo oo cadaadis kala kulmaysay dawladda federaalka Soomaaliya waxayna talaabadan hadda muujinaysaa in Jubbaland ay si buuxda ula wareegtay maamulka degmada Baardheere waxaana qorshaha Jubbaland uu yahay sidii guud ahaan gobolka Gado ay dawladda federaalka Soomaaliya uga faramarojin lahayd. su'aalaha dadka qaar ay isweydiinayaan ayaa waxay tahay dawladda federaalka Soomaaliya ma ka niyad jabtay ololihii ay ka waday gobolka Gado iyo sidoo kale hamigii kaga jiray in ay Jubbaland toosh markaasi kaga ifiso dhanka gobolka Gado. haddaba xaaladda oo haatan mar kale u soo laba kaclaysay ayaa waxaa la rumaysan yahay in Jubbaland markaasi ay ku dadaalayso sidii ay u hanan lahayd guud ahaan gobolka Gado oo ay mar kale gacanta Jubbaland ugu soo celin lahayd. dhanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaa la rumaysan yahay in ay ku hungowday damicii ay halkaasi markaasi kala ahayd taasoo ahayd in gobolka Gado ay ku qabato doorasho isla markaana ay ku dhisto dawlad ku meel gaar ah oo ka arrimisa Jubbaland balse odayaasha dhaqanka gobolka Gado ayaa ku gacan seeray in halkaasi lagu qabto doorasho taas oo markaasi maamulkeeda iyo nidaamkeedaba uu wato ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. waxyaabaha ugu weyn ee la isku qabtay ayaa waxaa ka mid ahayd shakhsiga laga dhigayo madaxweynaha ku meel gaarka ah iyadoo ay xusid mudan tahay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu markaasi meeshaas la damacsanaa shakhsi isaga lahayb ah taasna odayaasha gobolka Gado ay diideen isla markaana ay xuseen in aan markaas lagu qaban karin doorasho haddii aan markaasi madaxweynaha uusan noqonin shakhsi ka soo jeeda gobolka Gado taasoo ra'iisul wasaare Xamse haddii uu ku dhaqaaqi lahaa tallaabadaas uu caqabad kala kulmi lahaa odayaasha dhaqanka ee beeshiisa isla markaana ay istusi lahaayeen in ra'iisul wasaaraha uu dhaafinayo kursiga haatan ay ku fadhiyaan ee uu joogo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. dawladda federaalka Soomaaliya hadda uma furna waddo kale iyo meel kale oo ay madaxweynaha Jubbaland cadaadis kaga saarto oo aan ka ahayn wada hadal toos ah oo ay la furto. warar aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in xubnaha beesha caalamka ee ku sugan xerada Xalane ee Muqdisho in haatan ay isku dayayaan sidii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland ay ugu kala dabqaadi lahaayeen waxaana wararku ay sheegayaan in xubnaha beesha caalamka ay dawladda federaalka Soomaaliya u sheegeen in deegaanada Jubbaland ay ka jirto macluul aad u daran isla markaana dadka deegaanka ay u baahan yihiin dhaqaale iyo sidoo kale
taakulayn markaasi isugu jirta dhinac walba. sidaa darteedna dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in xaaladda taagan wadahadal lagu dhameeyo si dadka deegaanka ee markaasi musiibooyinka isbiirsaday ay markaasi u wajaheen si loo gargaar loogu fidiyo. ma cadda sida dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu qanci doonto baaqa beesha caalamka ee ku aadan in dadka reer Jubbaland laga dulqaado cunaqabataynta, isla markaana Jubbaland iyo dowladda federaalka uu heshiis dhexmaro. heshiiska nooca uu noqon doono wali lama oga. in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qanci doonto wadahadal dhexmara iyaga iyo Jubbaland, ama in markaasi ay shuruudo keeni doonaan oo ay ka mid tahay in sidii farmaajo berigii isaga iyo Axmed Madoobe 2 sano loogu kordhiyo. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha Jubbaland horey ugu aqoonsatay in uu yahay eedeysane xilli maxkamadda gobolka Banaadir ay jartay waaran lagu soo qabanayo. inkastoo waarankii dowladda federaalka Soomaaliya iyo amarkii maxkamaddaba meel uu ku dambeeyay cid war u haysa aysan jirin, madaxweynaha Jubbaland oo xayiraad dowladda federaalka ay horey u saartayna waxa uu markaasi toddobaadkan ka soo laabtay magaalada Nairobi oo uu safar markaasi xilli horeba ku tagay. waxay u muuqataa in dowladda federaalka Soomaaliya ay markan Axmed Madoobe ku wajahayso wadahadal xilli ay ku hungowday weerar walba iyo dadaal kasta oo ay ugu tala gashay in Axmed Madoobe ay kursiga ku dhaafiyaan. taasoo ay u sii dheer tahay cadaadiska beesha caalamka ay ku hayso, maadaama xubnaha beesha caalamka ay ku adkeysanayaan in cunaqabataynta laga qaaday Jubbaland, taa beddelkeedna la furo wadahadal si la isugu soo dhawaado. waxaana dowladda federaalka Soomaaliya haatan laga sugayaa jawaabta ay ka bixiso baaqa beesha caalamka. waxaana xusid mudan in dagaal toos ah iyo mid siyaasadeedba uu kaga adkaaday madaxweynaha Jubbaland. hadda wixii ka dambeeyana kaliya ay noqonayso in la isugu yimaado miiska wadahadalka. wixii warara ee ku soo kordha xaaladda gobolka Gado iyo xiisadda dowladda federaalka iyo Jubbaland halkan ayaad kala socon doontaan. haddaba daawade, haddii muuqaalkan aad dhamaysatay, maxaad isleedahay xalka waa uu ku jira dowladda federaalka Soomaaliya se maxaa kala gudboon in ay ku wajahdo xaaladda Jubbaland oo haatan ay ka taagan tahay xaaladii ugu adkayd, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay saartay cunaqabateyn, taasna wax saameena aysan ku yeelan maamulka Jubbaland oo madaxda ugu sarreysa ay u safraan meesha ay doonaan. qaybta faallada noogu reeb fikirkaaga.